ninku maqan yahay bimaa xafida allah. haddaba dumarka xaaladoodu sidaa ay tahay waayo kuwa wanaagga ku gaaraya adduunkii aakhiro. haddii amarkaa la siiyey oo intaa ay ka soo baxaan waa bani aadama ka warrama haddii qalad naga dhaco ama qalad ka dhaca ayaga maxaa la amray raggu inay sameeyaan? ilaah subxaanahu wa tacaala wallaatii takhaafuuna nushuusahunna, mid allaala midaad nushuusnimo uga cabsataan amarka inay diidayso wixii hadda aan soo tilmaannay qayb ka mida inay ka hor imaanayso naag walbood saa uga cabsataan. muxuu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala maxaan samaynaynaa? maxaa nala amray? kartideennii aaway caqligii, aaway garaadkii, waxyaabihii aan wax ku maamuli lahayn, iyo diinta ilaah oo nahagaysa fiiriya, islaamka wanaaggiisa fiiri. xataan saa naagaheenna oo la dhaqmi lahayn ayuu ilaahayna bara subxaanahu wa tacaala. iska dhaaf soonkii, iska dhaaf salaadii, xajkii, cimradii, axkaamtii diinta gurigeenna dhexdiisa saan u maamuli lahayn ayuu ilaahayna bara subxaanahu wa tacaala. laakiin ma rabna maanta, diintiyaan nacnay, gadaalan u tuurnay, taacadii rabbiyaan diidnay. waxaan jecelnahay waxyaabaha gaaladu ayna amraan, waxyaabahay buugaagta ku soo qoraan, say ayagu isu guursadaanaan isu guursanaa, say ayagu u dhaqmaanaan u dhaqannaa, say ayagu u dhalaanaan u dhalnaa, say ayaga ilmahooda u tarbiyeeyeen ayaan u tarbiyaynaa. waa nasiib xumo. aaway ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa ma nagu filna miyaa? diintiisii ma nagu filna miyaa subxaanahu wa tacaala? bacdamay xaaladdu sidaa tahay fiiriya sida uu ilaahay wax noo baraayo, fiiriya sida ilaahayna amrayo subxaanahu wa tacaala. wallaatii takhaafuuna nushuusahunna, maxaan ku samaynaynaa taa nushuusnimo uga cabsano? faciduuhunna, waaniya buu dhahay ila subxaanahu wa tacaala. waani isla markii ha furin. waa gurigaad soo gashay waxaad aragtay ayadoo hadal kugu soo celisay, saddexaa lagu furaa naagaa 10aan kugu furay. sidaasay yaqaanaan ragga gobol ka mid ah. warsaa ma aha. aawa adkaysigii, aaway kartidii, aaway waxyaabihii kale. iyadoo 10aan ku furi karo beri ku imaana oo gule shiiqo ani waa xanaaqsanaa naagteeda saas dhahay ka warrama. karti iyo waxyaabo kale iyo waxyaabihii rabbi amray inuu ku socdo asagaa diidan marka hore. sidaa darteed ayuu ilaah yidhi faciduuhunna, war wacdiya, war waaniya, war diinka u sheega, ilaahay ka cabsa dheh. war waxaan aad ku socoto waa wixii lagu naar geli lahaa, waxaan aad ku socoto waa wixii jannada aan lagu helaynin, waxaan aad ku socoto waa wixii ilaahay xanaaqiisa ku imaan lahaa. saas dhaha oo waaniya, diinta alla u sheega. hadday tahay naag waxgarada oo diinta qaana oo rabbigeed ateecaysa, wacdigu waxbay ku qaadan doontaa, wacdigu waa ku waana qaadan doontaa sida ilaahay tilmaamay subxaanahu wa tacaala. wadakir faina dikraa tanfacu lmu'miniin, waanadu mu'miniintii anfici doontaaye. ilaahay aayad kale ayuu ku yidhi subxaanahu wa tacaala in nafacati dikraa sayadakaru man yakhshaa wayatajannabuha alashqaa. midka taqiga waa waana qaadan doonaa. gabar taqiyada hadday tahay waanada waa qaadan doontaa. indhaheedaa biyo ka imaan doona haddii aayad ilaahay la xasuusiyo subxaanahu wa tacaala. waxaan ilaahayaa xaaraantilmeeyey haddii la dhaho way istaagi doontaa. istikfaar iyo toobay u degdegi doontaa. ninkeeday raali gelin doontaa. haddii shaneemo laga soo guursaday, ayadoo meelaha qaadka joogta laga soo guursaday, adiga iyo ilaahaagaba waxaan hadda sheegi karin oo afkeena aan soo mari karin ayay ku hadli doontaa. xaaladda saasay u kala bixi doontaa. haddii ay tahay mutiicad rabbigeed adeecsanna wacdigay wax ku qaadan doontaa. faciduuhunna, wacdiya, war wax u sheega, waaniya. sidaa buu dhahay ilaa subxaanahu wa tacaala. hadday waanadu wax ku qaadata walaashaa waaye, dhibaato kale ha gaarsiinin. war sidaa ku soco oo gurigiinnii dhaqankiisa ha wanaagsanaado. ha soo xasuusinin oo marar kale ha keenkeenin xumaantii waxyaabihii la sameeyey. ilan wanaag maaha xaaladda noocaas ah. sidaa darteed ayuu ilaah subxaanahu wa tacaala leeyahay waaniya oo wacdiya oo diinta u sheega. hadday diidda ka waran, ilan xanaaqaa jira, shaytaan ayaa jooga meesha, weli waa la saaran yahay gabadhii, dhibaata ayaa weli ka muuqata. diintaad u sheegtay waa kaa sii jeesatay, xaqii ilaahay ayaad xasuusisay uma soo jeedo. rabbi diintiisii, aayadihiisii, axaadiistii nebigaa loo sheegay, weli waa sideedii. maxaad samaynaysaa haddana? faciduuhunna, maxaa ku xiga? wahjuruuhunna fi lmadaajic. weli garaacitaan iyo furitaan ma imaanin, furitaan weli ma imaan ee ilaah wuxuu yidhi ka haajira. war waxaad uga haajirtaan madaajica iyo makaanu jiifka, mucaamalaadka hoose ka goosta ayuu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. wahjuruuhunna fi lmadaajic.
hala hadlina ilaa 3 maalmood ayaa la ogol yahay ay culimmada gobolka mida yidhaahdeen waayo ma bannaana wiil mu'min ah ama 2 qofood oo mu'miniin ah inay kala aamusnaadaan muddo 3 maalmood ka badan waxaa qayr badan labadooda kii salaanta bilaaba ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam waayo maalin kastoo itnayn ah iyo maalin kasta oo khamiis ah acmaalaha rabbi ayaa loo bandhigaa oo loo geeyaa ilaah subxaanahu wa tacaala markay malaa'igtu u bandhigto waxa uu leeyahay addoon walba oo mu'min ah oo rabbi rumaysan oo diinta rabbi ku socda oo aan rabbi u shariig yeelin dembigii iyo qaladaadkii ay galeen ka cafiya ilaa 2 qofood oo baynahumaa shaxna iyo colaad ee dhex taalla maahane 2 qofood oon heshiis ahayn maahane inta kale cafiya labadaa usuga ilaa ay ka heshiinayaan ayuu leeyahay ilaah subxaanahu wa tacaala marka aamusnaanta ma habboona mana wanaagsana 3 maalmood in laga badiyo mucaamalaadka hoose ka goosta wahjuruuhunna fi lmadaajic jiifka uga haajira ayuu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala waa canaanaha dumarka lagu canaanta ka mid ah walow maanta aysan canaan ahayn walow maanta ay noqotay shay aad iyo aad isaga dhibaato badan oo mar allaala marka laga sii jeesto ayadana kibir iyo xanaaq iyo sii jeesasho ay ka qaadayso meeshii loogu talagalay inay soo rujuucdo ay rabbigeed ka cabsatay ninkeeda ixtiraamto ay wanaajiso ay ka dambayso wahjuruuhunna fi lmadaajici jiifka uga haajira ayuu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala intaa ka gadaal maxaa la samaynaa hadday amar qaadato oo ay soo noqoto oo ay dhahdo aniga waa qaldamee raalli ha layga ahaado sidaasaa rabtay iyo hadallo noocaasa ha kula hadlin war hadal fiican ku soo dhoweey qof allaala qofkii ictiraafoo dembigiisa qirta wuxuu la mid yahay kaman laa demba lah qofaan dembi samaynine sidaasoo kale ula soco oo kula dhaqan oo kula mucaamalo hadday wax ku keeni weyse ka warrama haddana waa la wacdiyey waa sideedii jiifkiyaa looga haajiray way ka sii dartay maxaan samaynaynaa haddana weli furiinkii lama gaarin fiiri ilaahay wanaaggiisa subxaanahu wa tacaala intaa waxaa la raadinaa guriga inuu dhisnaado intaa waxaa la rabaa guriga masiirkiisii ma'wadkiisa inuu ahaado jannatulfirdowsa meesha u dambaysa meesha inay gaaraan guryaha maanta burburaa ku dhacay guryaha maanta layskuma wanaajiyo guryaha maanta layskuma ixtiraamo guryaha maanta layskama dambeeyo ninka iyo naagtu 2 furo ayay kala wataan waa aad shay dhibaato badan sigaarka waa la kala daartaa gobolka mid ah wax ixtiraama wax la qaba iyo naagta la qaba iyo ninka wax qabaa ma kala taqaanid waxaad u malaysaa 2 iskaabula ah oo isla nool oo kale waa shay aad iyo aad u dhibaato badan intaana waxa kalifay waa xuquuqaadka aan tilmaamayno oo midkoodkan kale uusan uga soo bixaynin ilaah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala inta hadday wax ku qaadan weyso oo la waaniyey oo weli sideedii ay tahay jiifkii looga haajiray oo weli ay sideedii tahay wadribuuhunna garaacitaan ayuu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala nebiga maruu tilmaamayo wuxuu yidhi waa darbi oo hayra mubarax aan wax bararinaynin feer aan jebinaynin dhaabac aan gaarsiinaynin aan wax shaakili waxyaaba jasadkeeda ka muuqanaynin sidaa ayaa loola jeedaa xanaaqa marka uu kaa bata naagaha ha tumin sida loo tumo ximaarka oo kale rasuulku aad buu ula yaabay sala allahu calayhi wasalam ma tumaysaan ka jaldilcabdi buu yidhi sida addoonka loo jeedaleeyo oo kale fiidkii hore fiidka dambena ma waxaad la aadaysaan firaashka waa shay caqli xumo ah sidaa ha yeelina garaacitaanka aad garaacaysaan yuusan noqonin mid feer ka jebiya mid laf baabi'iya wax dhibaato gaarsiiya wejigana ha ka garaacina ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam rasuulku markuu tilmaamaya dumarka sida ay yihiin iyo daciiftinimada ay qabaan rasuulku wuxuu yidhi markaad garaacaysaan ha garaacina garaacitaan xoog badan ha habaarina oo walaa tuqabixa dhihina waa shay aad aad u dhibaato badan ama wejigeeda aad habaarayso dhibaato aad gaarsiinaysa ha samaynina sidaa ayuu rasuulku yidhi hana ka garaacina wejiga ilan waa shayga ugu qiimaha iyo wanaagga badan allah loogu sujuudaa bani aadamka lagu qaabilaa waa xubinta ugu qiimaha badan ee bani aadamka uu leeyahay sidaa darteed ayaa mamnuuca in la gubo ayaa mamnuuca qofka in laga garaaco ayaa mamnuuca in dhaabac laga gaarsiiyo xaaladahaasoo dhanba sidaa darteed ayuu rasuulku yidhi garaacitaanka aad garaacaysaan ha ahaada garaacitaan aan dhibaato iyo shaaq iyo dhib aan markaa gaarsiinaynin sidaa yeela ayuu dhahay haddaba garaacitaanka la garaacayo culimmada qoloba waxbay ku sheegeen garaacitaan maba loola jeedee waxaa loola jeedaa hadal adeeg in lagula hadlo oo la yidhaahdo wax la tumaad istaashaa ilan ilmaha la garaacaa ayadu waa qof weyn
oo la soo guursaday oo guri la keenay oo guri lagu dhaafay oo mas-uuliyad ah oo mas-uuliyad la saaray oo la rabo beydkaasoo dhan inay u noqoto hooyo ilmaha soo baxaya inay warshadii wanaajin lahaa diinta alla ku hagi lahayd diinta alla bari lahayd ilaahay ku xir lahayd inay noqoto adoo saas ah maanta waxa aad samaynaysa waxay la eg tahay wax inta u loo soo qaato markaa la garaaco intaasaa garaacitaan ugu filan qole saasay yidhaahdeen marada dirifteeda lagu tumaa iyo waxyaaba noocaasa gole ayaa gaarsiisay rasuulka sala allahu calayhi wasalam wakhtigiisa markii muhaajiriintii ansaarta ay isguursadeen waa reer madiine iyo reer makee dhaqankoodii ayaa iskeeni waayey rasuulka sala allahu calayhi wasalam markuu arkay naaga la tumay ayaa wuxuu soo istaagay mimbarka uu yidhi yaan la garaacin addoommada ilaahay naagaha ayuu ula jeeday dumarku markay arrintaa maqleen ayaa xadiisku wuxuu tilmaamay inay waxoogaa raggoodii ku dhiidhiiradeen bacdamaa rasuulku uu diiday in la garaaco mar allaala markay ku dhiiradeen ay asxaabtu soo noqdeen mar kale oy rasuulku u yimaadeen wuxuu u ruqsiyey garaacitaankooda intaa ka gadaal ayaa naagihii waxay haysteen weli amarkii hore inta la soo garaacay ayaa naago badan waxay u yimaadeen gurigii rasuulka ayagoo ka sheeganaya dhibka xalay la soo gaarsiiyey nebiga mimbarkuu istaagay markaasuu yidhi gurigayga waxaa ku dawaafay naago fara badan oo ahladooda iyo raggooda ka sheeganaya tumitaanka iyo garaacitaanka ragga garaacitaanka badan ee saa wax yeelay akhayaara ma ahan buu dhahay sala allahu calayhi wasalam akhayaar ma ahan ayuu yidhi akhayaar looma wadan karo ninka naaga tunka badan qiimo iyo wanaag male naag ayaa la furay wakhtigii nebiga waxaa dhammaaday saddexdeedii dalqo rasuulku wuxuu yidhi ku cidda dirsamo mushariik guriga naagta la yidhaahdo gurigeeda intaa ka gadaal ayuu yidhi waa naag gurigeeda ay asxaabteedu daboolaane cabdullaahi ibnu maktuum gurigiisa ku tirsa ciddada waa nin acmo ahee hadday ciddadu kuu dhammaatana isoo ogeysii gabadhii waxay ku cidda dirsatay gurigii intaa ka gadaal ayaa waxaa soo doontay laba nin labadaa nin waxay kala ahaayeen mucaawiya ibna abu sufyaan iyo abujahmin nin la yidhaahdo rasuulkan horay ayuu amray in arrinteeda la ogeysiiyo rasuulkay u timid markaasay dhahday ciddadeedii way dhammaatay labadaa ninna waa isoo doonteena rasuulkii allow ka waran rasuulku wuxuu dhahay labadaba ha guursanin mucaawiya sicluug waaye laa maala lah wax xoola ah ama hanti ah oo uu leeyahay markaa ma jire ninka abujahmi la dhahana ha guursanin waayo usha kama dhiga qoorta ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam usha qoorta kama dhiga laba macnoba waa suuragala siday muxadisiintu yidhaahdeen qole waxay yidhaahdeen waxaa loola jeedaa waa nin safar badan oo safarkiisu aad u badan yahay dumarkuna ma jecla ragga safarka badan sidaa darteed ayuu rasuulku yidhi ha guursanin waxaa kaloo macno kale ah ayay yidhaahdeen waa nin naagatun badan oo mar walbaa qoortay u saaran tahay usha maca daalika akhayaara ma aha garaacitaanka noocaas ah waa garaacitaanka ilaahay tilmaamaya subxaana wa tacaala akhayaara ma ahan ayuu yidhi intaa ka gadaal haddii la garaaco oo ay ku soo noqdaan oo ay soo rujuucaan markaa waa in dhaqankii sidiisii hore ahaadaa sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala wadribuuhunna fain aطacnakum falaa tabaquu calayhina sabiila hadday idin ateecaan oo ay soo rujuucaan waddo kale ha ku daandaansanina waddo kale ha ku raaraadsanina dumarka waa masaakiine waxyaabo kale ha soo faagfaagina waayo ilaahay caliyan kabiira waa alla sareeya oo haddana weyn sida aad uga xoog badan tahay ilaahay ogow awooddiisa subxaana wa tacaala sida hantida iyo xoolaha iyo xoogga lagugu dhiibay inuu ilaahay kaaga xoog badan yahay ogaada ka warrama haddii la wacdiyey oo weli sideedii ay tahay waa dhibaato ka warrama haddii jiifka looga haajiray oo ay ka sii dartay waa dhib ka badan haddii la garaacay oo ayse kaa celisay ka warran ayadana maxaa la samaynaa wain khiftum shiqaaqa baynihima haddii weli laga cabsado shiqaaq inuu jiro khilaaf uu markaa weli taagan yahay oo baynkooda ah fabacasuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha labada ehel haysu yimaadaano waad u jeedaa ehelka waxaa laga dhigay qayb aad aad u dambaysaa marka hore labada qofood waa inay xaaladooda ayaga xallistaan ninka iyo naagtu mar haddii doodooda iyo murunkooda bannaankuu yimaado faa'iide iyo qiimo ma laha markaasaad arkaysaa bayd maalin walba laga xaajo falaayo bayd maalin walba bishiiba 3 mar loo imaanayo aqayaarayn waa laga aqayaaray waxayba u maleeyaan bafaan iyo waxyaaba noocaas oo kale ah ninkaygaan isku dhacnayn ku leedahay ama xaaladaasaa markaa jira naagtaydan isku dhacna aqayaaraan raadinay aqayaar ha raadinin ee kitaabka la aqayaar ka dhigo ee sida ilaah ku amray wax u maamul
war sida ilaahay ku amray wax u dhaqan war sida ilaahay ku amray wax u dhaq saasuu ilaahay ku amraa subxaanahu wa tacaala hadday xaaladdu sii taagan tahay fabcahuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha labada ehel hadday islaax doonayaan ilaahay waa waafajinaa subxaanahu wa tacaala laakiin labada ehel hadday qalbi bug yahay oo meel kastaa qof kastaa qalbigiisa uu buko ninkan qayaartaana ninkooday u xanaaqsan yihiin anagoo reer hebel ah maan gabar saasna yeeli doontay ku soo galaan gogasha gabadhiina dadkeeda markay meesha fadhiyaan anagoo reer hebel ah gabadheena maasaasna yeeli karaa meesha ay ku yimaadaan ilaahay ma waafajinayo islaax iyo wanaag laakiin qalbigooda hadduu islaax ku jiro gurigan ha la islaaxiyo ha la wanaajiyo war gurigan baaba'aya oo dumaya ha la adkeeyo sidii uu u dhisnaan lahaa ha lagu dadaalo ay meesha ku soo fadhiistaan yuwaffiq illaahu baynahuma ilaahay waa waafajinaa intaas haddii la soo maro oo xaaladahaasoo dhan la soo socodsiiyo oo intaa wax lagu qaadan waayo markaa ka gadaal dhibaato male inuu furiinku yimaado ilaan waa xalal ka mida wax lagu xalliyo ilaahay ayaana amray yaa ayuha الnabiyu idaa طallaqtum الnisaaءa faطalliquuhunna liciddatihinna waaxsu lcidda taa waxay tilmaamaysaa shay diinta qabta inay tahay laakiin ma aha marka horeba laakiin waa markii jaranjarooyinka iyo hababkii hadda rabbina amray lasoo mara ka gadaal si kale oo wax lagu xaliyo la waayo ileen waa xalaal alla agtiisa looga neceb badan yahay furiinka maca daalika marka ayuu imaanayaa wain yatafaraqa yugni illaahu kullan min sacatih hadday kala tagaan waa laysku dhibtooday mashaakilaa yimid aqyaartii mar walba joogtay noqotay waa la wacdiyey wax ma maqlayso si kastaa wax loogu sheegay weli waa sideedii waa soo taagan tahay rabbi ayaa mid kasta gooni ahaan u deeqi doona wain yatafaraqaa